ardaydan ka heshay deeqaha waxbarasho ee dowladda Suudaan jaamacadeeda kala duwan ayaa ka yimid qaybaha kala duwan ee gobolada dalka Soomaaliya haba ugu badnaadaan deegaanada uu ka arrimiyay isla markaana ka taliyo maamul goboleedka Puntland. deeqdan waxbarasho oo ay heleen ardaydan ayaa isugu jirta qaybaha kala duwan takhasusiyada jaamacadaha Suudaan ay bixiso. Ibrahim Muuse oo ku hadlayay magaca guddiga qabanqaabinaya soo dhaweynta ardaydaasi ayaa warbaahinta qaranka u sharaxaya sida ay ardaydaasi u soo dhaweeyeen marka ay soo caga dhigatay diyaaradii siday dalka Suudaan. Magacu waa Ibrahim Muuse Maxamed oo ka barta waddanka Suudaan gaar ahaan caasimadda Khartoum. waxaan hay ardayda soo dhaweynaysa ardayda waxbarasho ka heshay waddanka Suudaan. marka hore waxaan mahadcelinayaa dhammaan wasaaradaha waxbarashada Soomaaliya iyo Puntland. waxa sidoo kale aan mahadcelinayaa madaxda waddanka qaranka Soomaaliya iyo waliba madaxda maamulka gobolka Puntland. waxa way aad baan u faraxsanahay inaan soo dhaweeyo arday tiro inta leeb oo waxbaranaysa. waxbarashaduna waxay ka qayb qaadanaysaa horumarka waddanka. waxaan labaad iyo saddexaad baan leeyahay ku soo dhawaada waddankeena labaad. dhanka kale Cabdirasaaq Maxamuud Faarax Qalinle ahna gudoomiyaha ardayda reer Puntland ee Suudaan ayaa tibaaxay inuu aad ugu faraxsan yahay ardaydan ka timid deegaanada Puntland ee deeqaha waxbarasho qaybaheeda kala duwan ka helay jaamacadaha dalka Suudaan isagoo ka codsaday inay ka faa'iideystaan deeqahaasi waxbarasho ay siisay dowladda Suudaan maadaama buu yiri ay jiraan dad walaalahooda oo kala ah oo aan helin fursadan ay siisay dowladda Suudaan. waxaan markaa idin ogeysiinaynaa inaydan dareemin inaad waddankiina aad ka timaadeen Puntland oo Soomaaliya aad ka timaadeen Suudaan oo Soomaaliya labaad inaad timaadeen walaalihiin idinku soo horeeyeen inaad ku farxadaan. intaas oo dhan waxa weeye waa ardayda reer Puntland ee iskuulisay waxay leeyihiin waxa weeye noocyada kala duwan oo cilmiga barteen in badan joogay arday sanad hore aan soo dhaweynay inta way ku jiraan. waxaan leeyahay waxa weeye wajh farxadeed gacmo furan dhanka furan soo dhawaada walaalihiin oo waxa weeye in badan sugayay. إن شاء الله وحوي إعلان كان وحوي وقاري دونا وحوي دلبي دبدي وقاري دونا. intaasi kadib ayaa warbaahinta qaranka waxa uu suurto gashay in ay diiradda saarto dareenka ardaydaasi deeqaha waxbarasho kala duwan ka helay dalka Suudaan waana kuwan iyagoo cabiraya dareenkooda. waxaan ugu mahadcelinayaa dowladda Soomaaliyeed qaadka ma soo qorsay sidii qaabka fiican ugu soo roogtay dalka Suudaan. waxaan leeyahay aad baad mahadsantihiin dowladda nadiiran oo qaabka noo soo aqbashay. waxaan kaloo mahadcelinayaa dowladda Suudaan oo ka helnay maxaa waxbarasho. dowladda Suudaan ayaa waxay ka mid tahay dowladaha ugu badan ee deeqaha dhanka waxbarasho ka taageera dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dowladda Soomaaliya. waxaana la xasuustaa in sanad waliba ay siiso deeq waxbarasho dowladda Soomaaliya. Cabbaas Maxamed Nuur, warbaahinta qaranka, caasimadda saddex geesoodka ee Khartoum, Suudaan.